madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in ciidamadiisa ku sugan Soomaaliya uu ka saarayo hadii ururka midowga Afrika uu isku dayo inuu dhimo ciidamadiisa ka tirsan howlgalka AMISOM. Museveni ayaa soo bandhigay warar ay isweydaarsadeen isaga iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo la xiriirtay qorshaha la dejiyay in lagu dhimo kumanaanka askari ee ka socda dalalka Afrika ee muddo ka badan 10 sano ku sugan dalka Soomaaliya. Waxa uu ku hanjabay in ciidankiisa uu la baxayo oo gaaraya 6400 hadii la isku dayo in xitaa hal askari oo kamid ahi laga saaro dalka Soomaaliya. Golaha ammaanku waxa ay noo soo jeediyeen inaan dhigno ciidankeena, waxaanse u sheegayna in xitaa hal askari aan la saaraynin oo ay wada joogayaan ama dhamaantood ay baxayaan, ayuu yiri madaxweyne Museveni. Madaxweynaha Uganda ayaa dhinaca kale sheegay inay diyaar u yihiin in dalkan ay isaga baxaan, balse ay ka horeyso helitaanka ciidamo Soomaali ah oo ku filan amniga guud ahaan dalka, kuwaas oo xilligan saansaanteeda muuqan. Yoweri Museveni ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee iska diiday inuu saaro ciidankiisa AMISOM, iyadoo horey madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu sidan uu kale u ka hor yimid qorshaha lagu saarayay ciidanka Burundi ee jooga Soomaaliya. 400 askari oo u dhashay Burundi ayaa dhawaan laga saaray dalka Soomaaliya, waxaana ka harsan 600 oo askari oo kamid ah 1000 askari ee la qorsheeyay in dalkan laga saaro si ciidamada Soomaalida ay u hantaan amniga dalka. Cabdullaahi Gacmo, Som News TV, Muqdisho.